boosaska dadka lagu magacaabo waxa xaqiiqo ah xukuumadda uu xasan madaxda u yahay xulkii ay sameeyeen markii ama dowlad goboleed loo eego ama beelbeel loo eego tayooyinka meeshii la leeyahay wax yar oo ama dhaqaalaha ay leedahay ama waa fiican tahay meel bay ku dhacday madaxweynaha xasan sheekh meesha uu ka soo jeedo ama beesha uu ka soo jeedo ayay intaas qayb ahaan u raacday taakay waxaa bilowday wax la yiraahdo raaf bilowday yaal raaf ma taqaaniin waxaan raaf rabaa maanta tabeelaha ka soo bilow ilaa caylasha eelay iyo jireed wuxuu joogo maanta waxaan soo qaadnay weerar inaan raafno jireed iyo eelay wixii ka sokeeyo ex control ilaa caylasha wixii jireed iyo eelay joogo soo dhawaada video waan soo duubaa anigoo jireed oo dhan xabsiga lagu ururnaa iyo eelay hooyadoo dhakada ka wadsan waxyaalaha qarax iyo ismiidaaminta iyo waxa dhan wax noor soo waa jireed iyo eelay يوم ودكانو جيري إلى لقيت فين نبض نقمايو حشي محمود ما أنت قانو قاتي يحول وإن للسفيا جريرته إلى هذا مركز ساعة قبل أول قلنا سقالي التوقف مدحتوية ومقعابين مدحوينه ليه يتوقف وكمد وهالبال واسكورير مدحوينه يسكو غيبيين أقاب درو نف ماله لو ما باهنا waxaa muuqata gurubaysi qabiilaysi iyo waxaas oo dhan waxa ka daran baqdin laga qabo hantida ummadda Soomaaliyeed inay meelay aadan la waayo qodobka labaad waxa weeye waa 100 milyan oo dollar oo bisha August bilowgeedii wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyadu inay heli doonaan qaybtoodii ama waaba loo diiday ama waa la sadbursaday arintaas kaliftay oo qodobka labaad qodobka saddexaad madaxweynihii oo ku mashquulsan iyo asxaabtiisii kobcinta shakhsiga iyo jeebka madaxweynuhu qaadkii intuu tagay Kenya 5 milyan oo dollar buu ku qaatay inuu qaadka horta furo intaan laba gaarin dawladda dhismaheeda qaadkii contract buu ka dhigay wuxuuna u xiray wiilkiisa iyo dhowr nin oo ku jiro oo isaga familigiisa ah laba nin oo familigiisa ah wiilkiisa iyo wiil Ismaaciil Umar Geelle xaaskiisu dhashay family business buu noqday